halkani waa Cabdullaahi Yar Official muuqaal cusub ayaan idin wada fadan channelka hadii aad ku cusub tahay subscribe inoo dhe like na saar siina share garee si muuqaalka meel fog u gaaro warar ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee xilka isaga tagay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la doonayo in weerar lagu qaado guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho weerarkaani oo ay abaabulayaan saraakiil sarsare oo kamid ahaa kubi markaasi la magac baxay badbaado qaran iyo kuba kale oo ka tirsan xoogagga nisa sidaan ognahay maalinnimadii shalay ayay ahayd kadib markii taliyihii hore ee nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir gurigiisii weerar lagu qaaday walow asaga laga waayay weerarka kadib ayaa waxaa halkaasi ka dhacday shaqaaqo oo markaasi ay isdhaafsadeen ciidamadii guriga weeraray iyo kuba kale oo ayagana halkaasi waardiye ka hayay haddaba wararkaani soo ifbaxaya ayaa waxa ay sheegayaan hooyga magaalada Muqdisho oo madaxweyne Farmaajo ka degan yahay in uu ku wajahan yahay weerar kaasi oo la qorsheeyay mar hore waxaa laga yaabaa weerar noocan oo kala oo argoosi ah in gabi ahaanba lagu ekeeyo saraakiishii markaasi ka hoos arriminaysay madaxweynihii xilka isaga tagay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo walow wararka hadda soo baxaya ay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo qudhiisa weerar lagu yahay haddaba arrinkan ayaa si cakiraysa geedi socodka nabadda ee dimuqraadiyadda uu hana qaaday ee uu dalka Soomaaliya uu ku naaloonayo ayadoo madaxweynaha xilka haya ee Xasan Sheekh Maxamuud habeenkii xilkii la wareegayay uu sheegay in wax argoosi ah aysan dhicin balse hadalkiisa ayaa waxa laga dhadhansan karay habeenkaasi in ay ku hoos duugan tahay in argoosi uu jiro isla markaana raggii weeraradii 19 February ee 2021 iyo weeraradii ka dhacay Hotel Maida ay iminka wajahayaan raggaasi in argoosi markaasi lagu sameeyo haddaba arrinkaani ayaa haddii dhacdo waxa ay caqabad ku noqonaysaa hanaanka dowladnimada iyo habsami u socodka dimuqraadiyadda dalka ka jirta daawada haddii aad channelka cusub tahay subscribe inoo halkani waa Cabdullaahi Yar Official ku mahadsan tahay daawashada muuqaalada